ugu waxaa goobta ka hadlay Abukaate Axmed Cadow xiriiriyaha degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose iyo gudoomiyaha degmada Afgooye. maanta waxaan joognaa xuduudii u dhaxaysay Banaadir iyo Shabeellaha Hoose oo la dhagax dhigay haddaan dhagax dhigno waa u jeedaan insha Allah maanta waxay ka bilowdo calaamada qofkii aan ka saynin inuu bartaan rabnaa oo Muqdisho joogo marka ma sha Allah anoo warka ku dheeraan la xuduudii gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolka Banaadir la gobolka Shabeellaha Hoose xaqay u lahaayeen in halka shacabka markaas ay meesha xuduudda dalkaas ay halka amnigood iyo dhamaan ay ka wada shaqeeyaan iyo arrimaha bulshada gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa nagu heliyay hormudka hadoo ilaa yiraahdo halkan maanta saaka oo soo kuurgalnayna ka dhisnaa argadii kala qeybinaysa gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolka Banaadir argada horta mid la sameeyay ama awal wal jirtay in kastoo la argay ku taalno jagvontu iska yeelay maanta waxaan ku sameeynaa argo ugu welinay gudoomiyaha gobolka imaamka degmada Afgooye argadaas uu soo wakiisay madaxweynaha Koonfur Galbeed argadaas nimanka isku dhowr degmo kale oo argooyin kale ka dhisay ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ahmiyad gaar ah u leedahay shacabka Koonfur Galbeed argadan halkan laga hirgeliyay argadan way fududeeyasa Koonfur Galbeed meelay inta la kadeeyo yurkud iyo meelay eelash biya inta dhawayd meelay Koonfur Galbeed inta dawladda Koonfur Galbeed wala dawlad meelay calankaas waay calankaas meel isu ka teegay way adeeyas meelay xuduudkii gobolka Shabeellaha Hoose iyo meelay Koonfur Galbeed inta marka way maadnagay madaxweynaha Cabdicasiis Lafta Gareen oo uu markuu habi waajibaadku uu sanasi intii arga weyn tambay dhabo ka taal dhatiye baar lagu baxsi mideeda dhaafta maayfuulka dinjeed tan ka dhisan oo kale inta la ka dhis saas daraadii marka arga meel walba ka dhisay guddi magacaawni guddigaas guddiga arga uu sameynta ama xuduudda gobolka Shabeellaha Hoose leeyahay Koonfur Galbeed guddigaas ay gudoomiyaha Cabdi Axmed Yuusuf Afar iyo gudoomiyaha Maxamuud Maxamed Mere gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka ay ka jara xogayaha gobolka guddiga ay kamid ah xiriiriyaha degmooyinka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Abukaate Axmed Cadow Axmed Tunni markaas daraadii waylana guddigu Ilaahay fudusay shaqadiyo gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha meelay maamulje kan la fool haadoy kan arbiska haadoy kan degmada Afgooy haadoy isna kaalmeeysan waylana marka geeka guul aan soo hoyatay meelay Koonfur Galbeed maay xadkii roogna gobolka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose ka gasan saas daraadii waylana gobolka Shabeellaha Hoose geeka xadkii horeey oo argona ka dhisno waay arga beesla ka gaadaw me arga jagpoint me arga laakiin amaanka la ku sugaa waay arga meelay muraayidi Koonfur Galbeed meel la galaa waay saas daraadii meel walba arga la ka dhisay Cabdi Fataax Ali Umar Tawakkal bismillaahi wa kafa salaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn dacalada adduunka meel walba aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahinta Southern Media Corporation oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka sida aad arkaysaan waayahan muranka gobolka Shabeellaha Hoose waa uu badnaa Shabeellada Hoose annaga iskale hawiye iyo raxweyn ayaa ku loolamay ama reer Mayland iyo ma arkaysa hawiye laakiin markii ugu dambeysay maalmihii ugu dambeysay sida aad ka daawateen deegaanka Jasiire ee degmada Afgooye abwaan Maxamuud Xaaji Maxamed Tarash abwaanka qarniga geeska Afrika ee suugaanta mayga ugu sareeya isagoo calankiisii wata kabankiisii wata ayuu ka soo heesay baddiisii quruxda badan gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose ku-xigeenkii hore mudane Madaale ayaa isaguna meesha ku kifaaxay marwo Nasteexa Lafta Gareen ayaa joogtay oo calanka huwaneyd aadan Malabow ayaa joogay qadiyad la kuuskuusay ahaa UK Hilaac ayaa taagnaa oo isaguna dabyar aan shidin calankiisii wata marwo Shukri aadan geesiyada Mayland haddee waxay dhigtay waa la ogaa iyada calankeeda wadata marka sidaas awgeed ciidamadii qalabka sidayna iyagoo qurux badan oo hubaysan ayay taagnaayeen badda xeebta Jasiira doodo badan iyo muran badan ayaa ka dhacay baraha bulshada Facebooka warbaahinta SMC-na ay iyadu qabanaysay iyadoo qofna aan la dulminaynin ugu dambeyntii waxaa soo batay bariyahan guuxii xuduudda gobolka Shabeellaha Hoose in lagu murmo siyaasiyiinta saraakiisha iyo ganacsatada hawiye oo awalba Mukhtaar Roobo wixii loo soo qabtay ee uu ahaa gobolkan Shabeellaha Hoose haddana ilaa iyo 2 bilyan baan dhiibaynaa Mukhtaar hanugu soo daynin ay taagan yihiin waxa ay ku doodayaan in xuduudda gobolka Shabeellaha Hoose
in ay tahay carbiska wixii ka dambeeya oo dhanka afgooye iyagoo doonaya in ceelasha biyaha ay gudaha gobolka banaadir ay soo gashadaan laysanka macnihii loogu dhufto iyagoo taasi ay ka dabaaqtamayaan maamulka gobolka shabeellaha hoose ee mayland uu hogaaminayo doctor cabdiqaadir cd oo nin laba xaniyood oo 14 oo xaniyo kuskuusan ah oo aan loo dhowaan karin oo balaaya ka dhacday oo aqoon-yahan ah aadna u yaqaana qolyahan siyaasadooda iska daba wareegooda ee ma arkaysa in badanna macnihii weliba suudaan iyadoo la joogo cabdiraxmaan cabdishakuur warsameeye isagu ay isu feereen kadib markii macnihii ay yidhaahdeen shaati guduud waa waagii arareede shaati guduud waa mooryaan mujrim ah isla markaana cd uu yidhi shaati guduud xafidullahu ilaahay ha xifdiyo ها sidaas macnihii cd loo dharbaaxay dagaalamay dagaalkii dhacay taariikhda la ogyahay isagaa maantay waxa uu ka taagay isagoo taasi ka dabaaqtamaya xuduudda gobolka shabeellaha hoose calankii mayland aargadii shabeellada hoose iyo gobolka banaadir u dhaxeeyey siinka dheer ayay ka taageen marka sideed ahaanba hawiye waxay doonayeenna oyna daaroodka heshiis kula galeen in saddexda gobol gedo jubbada hoose jubbada dhexe daarood la siiyo bakool qayb daarood la siiyo iyagana shabeellada hoose in la siiyo iyo banaadir inta raxweynta ay leedahay laakiin xasan sheekh markuu sidaasi sameeyey shariif xasan uu keenay hadde daaroodkii mareexaankan midkan hadda jooga isagaaba laangaab waaye daarood kala dhahaya xasan cali khayre iyo sabriye ayaa siray xariggii mukhtaar roobow iyagoo ku taagan miladii xasan sheekh way u hosgeliyeen uuna ka qoomameeyey xarigga mukhtaar roobow iga qabsaduu taagaya marka sidaasi daraaddeed cd iyo iyagoo ka dabaaqtamaya hawiye sideed ahaanba ilaa shabeellada hoose buurakab wixii ka sokeey iyagoo raba laakiin haddana maadaama danta ay u run sheegtay oo baashu taagan tahay dayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaale weli digashadaadiyo sow dhaafka caashaqa dib u soo xasuustee ha igu daaline samiree oo dhallinyarada ragga iyo dumarka maskaxdooda xorowday ee mayland dhalasho beena intoo loo sheego haddana hootada lagu waday oo eelay baa tihiin la yidhi loogu soo afjaray ciyaarihii hawiye inuusan raxweyn jeclayn ciyaarihii eelay baxa wixii dhacay la og yahay raxweyntii haddaba maskaxdeedu nadiifay noqotay inaysan caana u shubaynin way arkeen waxayna goosteen inay dhulkooda ceshadaan cidna macnihii aysan ku raalli garaynin maadaama ay sidaa tahay doctor cd iyo tiimkiisii iyagoo ka dabaaqtamaya hawiyii saacadihii ugu dambeeyey dhahayey carbiska wixii afgooya dhankaasi ka jira ayay xuduudda shabeellada hoose ay tahay inta ka soo hoosaysana waa macnihii waa gobolka banaadir iyagoo ka dabaaqtamaya siinka dheer bay dhagaxaanta ku daadiyeen meeshaana hadda aa ka dhegaysateen cabdiqaadir cd geesiga mayland haa waxaana uu yidhi calankii waa kan wax lagu murmaana macnihii xagla geel wax dembiil lagu qaataa ka weyn dhuxdhuxna laguma soo jiidi karo buur dhadhaaba ah dhulna ka culus dhulka mayland wax hees lagu dhakriyo dhaanis gabadheed marka sidaasi daraaddeed dhagaxaantii waa kan aarga weyn oo isbaaro aan ahayn oo baabuurta aan lacag looga qaadin baa laga dhisayaa calankaa laga taagayaa caddaynaya inuu yahay dhulka mayland inkastoo xuduudda sarkuusta iyo macnihii warshaddii kaalkaal ay tahay oo ex control ay u dhowdahay midda sharciga ah haddana siinka dheer ayaa hadda aargadii ay dhagax dhigeen calankana laga taagay oo baryo aan ahayn oo khudbasiro aan ahayn waxayga anaa leh ah waana sida raxweyn in ay samayso la doonayey gacanna ay ku darta la doonaayo challenge-ga inay iska qabata la doonaayo marka cabdiqaadir cd iyo gobolka shabeellaha hoose dadka jooga shacabka dhiiran ee soo dhaqaaqay waan u hambaliyaynaynaa waxaan doonayaa bal inaan ma arkaysa macnihii aan soo qabto mutaxallil siyaasi
sheekh qaasim sheekh saalax inaan soo qabtaan doonayaa si macnihii barnaamijyadan socda xuduuddan ma arkaysa muranka dhalisay oo laakiin lagu kala baxayo markaan erey iyo laba uu noo dhaho muddo waxaan siin doonaa 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo sheekh saalax sheekh qaasim soo dhawow Hello. sheekh qaasim soo dhawow waan dhawahay aadana waa ku salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanna waan salaamayaa oo ay ka kooban tahay mayga iyo maxaatiriga meel walba ay joogaan runtii waxaan u malaynayaa ilaahay inuu nagu yiri وقولوا قولا سديدا هذا لدى الرنطة لازمة أما ضها مرولبا يصلح لكم أعمالكم أعماشنا ويهجاجيسا أو مربع دا الرنطة أتشيجيسا صومالينا ودت مسلنا أو ولبا مؤمن ما شيغتا مسلم يو مؤمن سيدا walaalkay horeyba u sheegay ama kelimada muslim ama islaam muslim horta waxa la yiraahdaa magaca muslim man nabiga ba fasiray wuxuu yiri man salama almuslimuna biyadihi wa lisanihi ninkii gacantiisa iyo afkiisa laga nabadgalo ayaa muslina meesh wixii bixi kara waad fahmi kartaan Soomaaliya marka muslim ma tahay mismaaha adaa miisaan saari kara nabigu wuxuu yiri almuslimuna almuslim man salama almuslimuna biyadihi wa lisanihi alislaamu sida walaalkayga idin sheegay qeyr Allah siiyo aadan cilmigiisu anigu kolley intaan hadda aan arkay waa mid aad u sareeyo waayo markuu sheegayay al-islaamu waa xaqiiqo weey islaamna yaa la yiraahdaa islaamku aadan wuu sheegay laakiin islaamka nin kasta soo gali kara islaam waxa soo gali kara tuuga waxa soo gali kara mujrinka wuu sheeganaya macna magaca islaam uu ku soo gaban kara sida shabaabka ay dadku ku hayaan magaca islaam laakiin magaca muslim iyo magaca mu'min waa darajooyin way ninku muslim horta ko waa islaam waa muslim waa mu'min mu'minka darajo la gaari kara ma aha ma la sheegi kara waa darajada ugu dambayso mu'miniinta marka lagu leeyahay innamal mu'minuna marka lagu leeyahay mu'minku waa darajada ugu dambaysa hada waxa la yiraahdaa mu'minka ilaa 9 sifo leeyahay ama 10 sifo oo ilaahay uu ku sifeeyay walladina ma'an salati qad aflaha almu'minun الذين عن صلاتهم خاشعون والذين هم لفروجهم حافظون حتى فرجيس كان يفضلين مؤمن معه واسكا دحجرا اسلام مسلم اسلام انتو نقول لكن مؤمن ما لا شيغان كر واتو الهي ليهي وقولوا اسلمنا ولكن لا تقولوا محيد مؤمن بارنا هدينا وقولوا واحد دحدان كلي اسلمنا واسلامني الى مؤمن كدرجه لا شقيسناي وجنرال meesha ugu dambayso oo la kasbado islaamka waa mu'minnimo marka uu la jeedadaydu waxay tahay horta yaa muslina yaa mu'mina yaa islaama intaas marka macnaheedu waxa weeyaan hadaad muslim tahay gacantaadii afkaaga ma laga nabad galay marka muhiimadu waxay tahay haddii muslimnimo la wada sheeganayo mu'minnimo haddana hataa mu'minnimadu waxaa ka mid ah نبي محور انصر أخاك مسلما أو مؤمنا ظالما أو مظلوما هذه السجل الظلمنا السجل الظلمنا أجرجان أصحاب تويا من حديث كان مركي أركان وحيدان يا رسول الله مركان قال عين ولكن وحادو السجل جردرين يا وان دوليني وان أسو عاريني لكن هدنا موسى هدو أسيق لقى قردرين حتى وحالينا قربان سينيني ما سيدي يا با إسلام كان ما سيبا أسيقنا سيدي موميا وهدو قردرين حتى قرب إنان سينميا
oo qoryadeena aan wada qaadana seefafkeeni aan la dagaalana asoo dad dulminaya aan u jeedin unsur akhaaka zaaliman oo madluuman baaleeri asoo la dulminaya asoo dad dulminaya ba u gargaar nabigu waa u kala bixiyay marka wuxuu yiri markii la dulminayo idinkaaba sheegteen garab siya laakiin markii asiga dad dulminayo seed ugu gargaaraysaan waxa ugu gargaaraysaan hadal cad buu sheegay nabiga khud biyadi qabo wariyaaho idulmiga jooji هذا نصره وأجرجارتي إن أتغبتت دتك كغبتت كفسك كغبتت إسبارة كغبتت ددلك كغبتت هرت هذا جبر له كفسرة يعد فير سنة يسد أو كعاموس يسد سيد دعدي وأي دعدي مقدشو أن جوجني لو مؤيان دتك لو بحي لو معاره وهذا هو ظلمي هذا مؤمن نمد كسار يعني كان هرت هذا وحكود لايو عد فير سنة يسد adigu wuxuu ka saarayaa mu'minnimadii wuxuu ka saarayaa islaamka laakiin ma jeedid khud biyadi nabigu ka hadlay iska qabta dulmiga hadaadan qabanin wuxuu yiri nabiga waa leedin iqaabi doona kadib aad ala bari doontaan thumma yad'una lahu fala yastajaba lakum leedin ma ajibay dulmiga hada iska qaban weysaan la yusallitanna Allahu shururakum buu yiri nabiga ma bafogeyn وحاكلي لذين قدر دونا كيني شرط بدن ثم تدعون إليه إلى آيات برينيس إلى ونغاقات موريان كان إلى ونغاقات شباب كان شباب سيلغاقات هذا يا ما أنت أنا وحان حسوستي لابد يكون يصدح يتبنكي أيا UN وحي سو سارتي دانك الدولة دا إيا دانك شبابتا وحا أي عدالة تعالى بيتر هاد وقالوا دانك الشباب ويابا أنا يابا وربحنتاس كل نقطة 2013 إلا الشباب كاكتيس وحلقوا ما كفصدوا إلا الشباب كاكتيس وحلقوا ما دعوا إلا وحا محكمة الدولة اللي جيدبا شباب كو انتاسي كروينهين شباب كادي قبرها برقدر أنين جرير كورسا لغا فرو مانا الله اللي كرواتي ليين معاوس لي دقالنو gabadhan si jareer weyne u guursanin iyo waxay dhan America ka soo gaareen min hadda la leeyahay shaalaley miya maaqan macaawisleyda u fiirsada marka la abaabulay khudbadooda waxa ku jirta waa shabaab la dagaalanahay maxaan kula dagaalamaynaa gabadhan jareer weyne si loogu darinay dheh iyo nin American horta wuxuu leeyahay gaala si gabadhan nin American loogu darin jareer weyne loogu darin jareerta gabdheena la siinoya iyo eelayda meesha waxa ku cad shabaabka agtooda in hadana midib kala soo uusan jirin sida islaamka qabo taas maxay ku tusaysaa marka dhibaatooyinka muqdisho yaalay wixii la mid ah iyo naaxiyadan iyo dawladda dhexdeeda dhibaato aad u culus inay tahay oo lagu qanci karin oo gabdho la soo dilaayo oo banaanka la dhigaayo oo baaritaankeeda ilaa hadda dad uma haynu yiri gadoomiyaha maxay ciidanka maxay ninka ciidanka booliska haysta إلى شو مد أو هذا ما يسمع أو ملاك قاسم حدودان أي ضيرة سارنتاي حدودان قبل كشبه الله هوسه معنيه ما أنت دكتور عبد القادر سيدي إمام الكيس وينجح دجين علن كيا كم موقدا أرجوين بالغ دسايا واسين كدير ضدنا وحي تاجيهين أنجا إسكاله هذا وحي ليهين أفجوي عربيسكا وحي كدنبيا ayaa shabeellada hoose ay ku egtaa wixii ka soo sokayo gobolka Banaadir shaqo fiican may qabteen CD iyo saaxiibadiisii mise ma qaban horta runtii gadoomiye CD Abdulqaadir saaxiibkayga waa u mahad celinayaa ninkan sidiisaba CD cadaalad wuxuu ka soo bilaabay Suudaan waa ninkii ugu horeeyay hawiye iyo daarood adkeena noogu soo dhiciyay weligooda ayaga gadoomiye arday ayaga noqon jiray sagaal kursi ayaa jirta oo caafimaad la bixin jiray hawiye ayaga iska qaadan jiray ayaga ka keensan jiray dadka laakiin CD markuu gaaray Suudaan waa ninkii sameeyay gadoomiyaha ardayda dhigata Suudaan 900 gadoomiye in laga dhigo digil iyo mirfle koonfur galbeed aysan jirin magacaas hataa asaas sameeyay hadaan dhoo waa dambi maaha maadaama midoow nuuno Allah u naxariista noo keenay sir ahaan aniga ma ogeyn laakiin asaan ugu soo biiray CD runtii
arrimaha uu hadda sameeyey waa arrimo loo baahnaa jahwareerka ka taagnaa koonfur galbeed iyo shakiga iyo murunka ka jiray ayay kala saaraysaa nimanka sheeganaya koonfur galbeed dhulkooda dhulkeedii qaar ka mid ah nimanka sheeganayo sheekh qaasim labaan kala qaadaynaa xuduudda gobolka shabeellaha hoose iyo waxaan kala qaadaynaa xuduudda reer Mayland xuduuddooda masiinka dheeraa mise waa 4 rukun qowmiyadaasi 1 point waxaan ka hadlaynaa hadda labada gobol ilaan labada gobolba waxaa iska leh raxweyn gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir waa laba gobol oo iska leeyihiin qowmiyadda raxweyn qabiilka raxweyn ee qowmiyadda Mayland hadda macnii muran waxaa ka taagnaa xuduudda gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir baa doodi ka taagnayd shabeellada hoose macnii afgooye ayay ku eg tahay hawiya sidaasay lahaayeen reer shabeellada hoosena waxay dhaheen xuduuddeenna waa siinka dheer weliba xataa waa sarkuusta maanta siinka dheer bay xuduudda dhigeen marka dadka kala bar xuduudda raxweyn iyo macnihii iyo xuduudda gobolka shabeellaha hoose raxweyn xuduuddeeda intee waaye ma siinka dheer baa mise 4 rukun waaye aadana runtii taariikhda si ay ku qoran tahay oo waagii hore oo dhulka xuduudaha uusan lahayn laakiin qabaa'ilka u kala xadsanaa la og yahay oo talyaaniga intuusan imaan ka hor meeshan boqortooyo ayaa ka jirtay oo digil iyo mirifle iska leh boqortooyadaasoo reer geladi oo hadda la juqjuqaystay oo la gedgediyey oo awiya laga dhigay qaarkood ay fadhin jireen waxaa meesha dekeda ayaaba naftirkeeda waxaa xukumayay ninkan la yiraahdo boqor ninka la yiraahdo muxuu ahaa Yusuf Ahmed nin la yiraahdo boqor Yusuf Ahmed oo ahaa boqorka geladi asiga badda wixii ka soo degta laga amar qaadan jiray 4 rukun digil iyo mirifle ciidamadiisii oo markaas haystay hubka sida falaarta qaansada meeshay fadhin jireen waagaas Ahmed Yusuf ninka la yiraahdo oo la dagaalaya biimaal ayaga wax kale kuma dagaalamayno xuduud baa lagu dagaalamay sida awoowayaashana noo sheegeen biimaal waxaa hogaaminaya nin la yiraahdo macalin kabtoole oo asaga naftiisa dilay sida la sheego oo maya oo la dilay ama asaga dilay oo marka waxaan maqlay awooweena nooga sheekeeyay madax dad misgu lagu beegayo badar in macalin kabtoole madaxiisa ahaa ama in Ahmed Yusuf madaxiisa ahaa labadooda midkooda xuduudda gobolka shabeellaha hoose iyo banaadir macnihii waa sarkuusta iyo siinka dheer meesha la dhigay hadda dhagaxaanta laakiin xuduudda raxweyn ma siinka dheeraa mise 4 rukun waa 4 rukun xaqiiqada xamarna waa saa sheegtay digil iyo mirifle ayagaa iska lahaa hawiyahan maba joogin waxaa jirtay taariikhda ku qoran tahay oo la og yahay hawiye markuu xamar soo galaayo suwaxdii lugaha nuuriya loo gelin jiray odaygaas haddaaba ku siinaya taariikhdaas wuu nool yahay daraad waa isku soo sawiray madaxtooyada agtiisa soo jooga anaaba la yaabay taariikhda gacanta ku hayo hawiyaha suwaxdii lugtiisa nuuriya la gelin jiray si garabti loo soo sooco magaalada loogu soo bixiyo magaalo ma jirin kaliya xamar weyne ayaa suuqa ahaa reer xamarkaas agtiisa xarneed hawiyaha waxay ka imaan jireen baadiye meelaan dhoweyn iyo weliba xataa meesha la leeyahay shabeellada hoose shabeellada dhexe xataa ma deganayn jawhar waxaa deganaa nin nasiibuunda la yiraahdo eele inuu yahay u malaynayo ayaa xukumayay waxaanoo dhan xoog iyo qajajac iyo warshad baa meesha la geeyay talyaaniga ay la heshiiyeen nimankan talyaaniga gabdhay siin jireen dhulka saas u siin jiray waad ogtiin hebel iyo hiblaayo talyaaniga u saarnaa Soomaalida talyaaniga dhalay oo talyaani hadda joogta tiradooda marka nimankan dhulka waxay ku yeesheen talyaaniga gabar baa la siin jiray xaqiiqo waa taas cid walba dhulka rabtay inay xukunto gabadhaas ay keeni jireen marka badna saacadiga ba sheegtay
caalta jubbo iyo baasta jubbo gabdhihii loo kala bixiyey waxaad sheegtay ma aqaan taariikh maalin aad soo qaaday marka runtii dhulkan digil iyo mirifla iska lahaa laakiin talyaanigu way sabsabteen oo gabdhana waa la siiyey oo weliba guur la'aana oo la guursanaynin saasay maartay dhulka xoogana ay ku yeesheen warshadaha uu geeyey sida jawhar oo kale siyaasad bay ahayd in meesha lagu abuuro dadkan waynu ku abuurmeen maanta jawhar ayagaa sheeganaya eeladii deganeed iyo shiidlihii dadkii deganaa jareer weyne ma sheegan karaan shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe labadaba digli mirifla iskale 9 gobol bay dhulka digli mirifle dega laakiin dadka yaraa dhulka badnaa marka waxaa la sameeyay talyaanigiina dad u dejiyay maxay ahayd dawladdii maxamed siyaad barana way ku sii xadgudubtay maanta in shak la geliyo xuduudda digli mirifle ama xuduudda koonfur galbeed waa dawladdii weliba kacaanka Soomaaliyeed la dhahay kacaanka ka hor xuduudaha waa la kala fadhiyay hawi iyo daarood gaalkacay kala goosneed cidii inta u soo gudubta erigii soo gudbata loolama hadlaynin halkaana wax ala wixii 4 rukun soo gudba oo hawi ah kama hadla jirin odayaashooda laakiin way nagu soo faafayeen way ku dhaldhaleen maanta Soomaa xuduudda koonfur galbeed inay 4 rukun tahay horta shaki kuma jiro laakiin hase yeeshee muslimnimadii Soomaalnimadii soo dhaweyntii hadday aqoonsadaan dadkan oo midilood la leeyahay nimanka midilood la leeyahay daraad maxaa loo leeshiin ninka niman ayagaba faquuqa jiray oo nagama tirsantihiin muuse dhariyaatiin waxay dhaayeen ma aqaan oo odaygii oo gargaatoowi loo leeshii waayo because waa ninka kaliya dhoowayda degan la soo faquuqay dhulka aan siinay kulli gargaatoowi gabar eelu wax ka dhalay ila dhulka markaa eela haysatay ayaga la soo erinayay oo hawiye kama tirsantiin la dhahay la midabta koray gargaatoowi hawiye ir nimanka gargaata la leeyahay hadda loo leeshii walaaleena tihiin waa idin ka qaldoonay ogaaska guud gorgaata idin magacaano waa nimanka kaliya shabeellada hoose noqola dagaalama kara waay oo ku leh wasiiro sida wasiir ku xigeenka caafimaadka nin gorgaata waay daraada soo aragnay waa nin gorgaata wiya oo nimanka la yiraahdo muxuu ahaa maxay ahayd wax magacooda ma aqaan qabiilka la yiraahdo الله واهل مامي دب ميا سلع ميا سلعس سلع ها مركا غرغاتا درا لو ييراي walaalkeen hawiyow waa ku waxa la ogaaday dadka u badan hawiya sheegta dhoowayda dega shabeellada hoose dega waa gorgaataas aniga kula hadlay eedadeyda oo aabeega la dhashay waxa caruur ilaa 10 gaaris u dhalay nin gorgaata hawiya Soomaali aniga markaas gorgaata ma aqaanin wuxuu yahay ma aqoon laakiin aboobiyaasheedii gabdhaha way siiyeen sababta loo siiyayna ayagaba dad la soo faquuqayeen la soo reexay marka ulajeedadeyda waxay tahay in maanta gorgaata asagana la soo adeegsado ayagoo la siiyay kursi oo waliba Cabdiraxmaan Cabdiaziz lafta garan waa u roonaaday xaqna uu ugu soo baxay sharafna uu leeyihiin waayo gorgaatuhu caruurtooda waxa dhalay dhan buu anaga guud ahaan gaar ahaan eeylo in gorgaata dhan hooyadiis waa eeylo meesha sababta eeylada u guursadeen waxay tahay dhulkaas waamo dhoobay baa leeyahay ayaga deganaa marka waxoo dhan isku soo dub aadanow hawiye hadaladu daraad uu ku hadlay shirki midilood Xasan Sheekh Maxamuud Codowaa oo isku sharaxayaan hadda iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur musharaxnimadoodii in shabeellada hoose ay qabtaan ay ka dhiganayaan horta waa arin cajiiba maantana codka digli mirfle inay siiyaan hawiye hadda aniga walaalkeen waa hawiye waxba uma diidan laakiin siyaasiyiintooda maanta xambaarsan siyaasadda hadii la eego hawiye hal cod iska dhaafe jab cod in la siiyo maaha horeyna waa u sheegay aadan uu i weydiiyay hawiye iyo daarood yaan cod ka siinayna hawiye siya sabab buu yiri sababtu hawiye dhulboob buu ku jira daarood nin afgooyana iskale hal habeen kuma murmi karo hatta hal saacad ma dhigi karo
laakiin shirki midilood allah u naxariistee qabtay ninka la yidhahdo cali mahdi maxamed waxaa ka soo yeertay lafta gareenow buu yidhi nin daacad la yidhahdo cumar daacad waxa la yidhahdo ma aqaana aad weliba mar hore anaga aqoon buu u malay ninku waa nin laga dambeeya wuxuu leeyahay lafta gareenow haddaad wasiir daadisay soo celin weysid ilaa iyo maxay ahayd yiri ilaa iyo maxay ahayd burac kaba anaga iska bal firim meeshuu ka fikirahay hebelka daacad ninka la yidhahdo hebel daacad baa la yidhahdo nin la yaqaano wa buuxuunu ku yidhi shirki midiloodunu ku yidhi lafta gareena wuu joogay ogow shirki wuu tagay sharaf ahaan u tagay inuu imaado iyaga ma rabin qaabkay rabeen ma ahayn in lafta gareen meesha ka hadlo laakiin runtii lafta garoonoo jooga ayaa daacad ninka la yidhahdo hebel daacad la yidhaahdo kolley dowladdu wuxuu kaan jira ma aqaan mucaarad weyn ah ayaa wuxuu leeyahay lafta gareenow wasiirada ka saartay koonfur galbeed aadan ku soo celinin buur hakabaan leenahay ilaa intaan leenahay marka ogow aadanow runtii doctor v wuxuu qabanaya waa wax weyn weliba loo baahan yahay hadday murun keenaanne hadda sirtaas haddaaba qeexaynaa waa qolada keliya ka soo saari karta shabeellada hoose hadday hawiye murun la imaadaan ilaan guri kasta hawiye iskale 20 guri ku soo xareeraysan gara iskale hadday ayagu isdhaqdhaqaajiyaan ama daraad cabdicaziiz ninka la yidhahdo cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu sameeyey oo ninkii garaha intuu u tagay cabadaha ku tiriyey yastiin darteed oo cid ka hadashayna aysan jirin hadda ilaa hadda waa arrimaha kale lagu xalin kara awooddaas cabdiraxmaan cabdishakuur sheeganaya shabeellada hoose ku dhex sheeganaya oo hawiyaha ku dhex sheeganayaan gobolka banaadir ku dhex sheeganaya waa sheegashada shabeellada hoose amnigeeda iyo lahaanshaheeda haddii la xaqiijiyo oo cadowga laga xureeyo cabdiraxmaan cabdishakuur inuu nin garad dile iska dhaafe duqsigan ama digaan waxay ka timid shabeellada hoose haddii la yidhahdo wuxuu dhihi lahaa biyaha loo shubo digaagaas biyaha loo shubo badarna hala siiyo laakiin sababtu u dilaayo nin digil ah muqdisho ugu dilaayo waa haysashada shabeellada hoose shabaabka shabeellada hoose joogana ayagu u jooga waa ciidan qarsoon taas waxaa daliil ku ah amisom baa dagaal qaaday afgooy marka la maraayo joojiya la yidhi odawaa baa dagaal qaaday janaal markuu maraya la yidhi jooji niyow sheekadaad wadid maaha ha xuraynin gobolkan marka arrimahooda way iska caddahay dadkan waa arrimo cad shabaabkan waa niman ayaga dirsaday sheekh qaasim su'aalan ku weydiinayaa marka hawiye kenya niman degan oo murilo la yidhaahdo hawiye sheeganaya waxay weerar ku qaadeen afka ah garre oo u dhashay raxweyn garaha kenya dawladda aad ugu jira dhulka ugu badan ee soomaalida NFD garra waaye waa raxweyn ayaan dhaweyd gabar jaamacad ka soo baxday oo garra ah raxweyn u dhalatay ayaa dukaankeeda gabar kale ay ku mishintay waa tii bishimaha laga soo googooyey oo marba waa la dilay la yidhi facebookga la soo dhigay lacagtii ay weydiisteen garruhu oo raxweynta ma dhiibin lacagta maadaama dawladda ay ku xoogan yihiin nidaam dawliya ayay macnihii abbaareen markay kadibna awood bay ku soo furteen raxweynta maadaama kenya ay ku xoogan tahay okay cabdiraxmaan cabdishakuur ciidamadiisu gurigii isaakh garow oo la yaqaano oo raxweyn ah guryaha kale intay ka soo wareegteen ayay hoobiyaal baan saaranaynaa ay dheen villa Soomaaliya aan ku duqaynaynaa dadkii shacabka ahaa markay diideenna way laayeen wiilashii raxweyn ee dhulka gurigaasi joogay garre hawiye waxay sheegtaan in raxweyn ay walaalo yihiin in ay ma arkayse macnihii ay jecel yihiin in aysan kala guuraynin waxaasi ayay sheegaan hawiye waxay sheegaan daarood in colaad badan ay ka dhaxayso 100 sano ah oo aysan is arki karin caana aysan isu shubaynin haddaba hawiye haddii daarood ay isnacab yihiin dastuurka maamulka galmudug gobolka iyo barka ah hadda ku shaqaynaya 2 gobol buu qabaa dastuurka federaalka
barka maqan dastuurka galmudug waxaa ku qoran waqooyiga mudug inuu yahay xuduudda galmudug inay tahay ilaa iyo burtinle oo gobolka nugaal ka tirsan 91diina dagaalkii haaf qiyaamo ama xadka iyo xawaaraha la dhihi jiray hawiye duulaankii uu qaaday ilaa iyo nugaal daarood wuxuu ka dilay 40,000 oo wiil daaroodkuna dagaalkii uu isaga caabinaya hawiye sanadkaasi 10,000 uu ku dilay waana tan gaalkacyo baf laba ay u kala jaban tahay baraxley iyo dhinac kale ee waqooyiga taarka su'aashaydu waxay tahay marka hawiye markuu itaalaysto oo codadka aan siino walaalaan nahay una yidhaahdo sidii xasan sheekh oo kale uu noo gelaya nin daarood uu dhulkeena siinaya calanka markaan u dhiibno oo 77 cod aan siino number 50 iyo dhulkan raxaweynta nool ama maylanka nool ayuu guryaha ku gubaya isbaaro dhacay dil bas su'aashaydu waxay tahay marka hawiye haddii daarood colaadi ay kala dhaxaysa sida uu sheeganayo run ay tahay galmudug dastuurkeeda waxaa ku qoran gobol iyo barka ilaa iyo burtinle inay tahay waay teedhisabanada iyo suugaga intuu qaato hawiye muxuu u xaqiijin waayey xuduudda galmudug ilaa iyo burtinle oo sababta keenaysa maalin kasta inuu macnihii raxaweyn kaliya u xooggan yahay uu u dhahayo 4 rukun idinka ma lihidiin shabeellada hoose idinku ma lihidiin jasiira idinka ma lihidiin haddana walaalaa nahay codkiinana isiiya macnihii hawiye walaaltinimada uu sheeganayo iyo cadowtinimada uu sheeganayo inuu daarood u qabo maxay tahay sheekh qaasim aadanow horta walaalnimada hawiyan kala saarayna maanta waa laba walaaltinimo walaaltinimada koowaad waa runta waa dad daras baynu nahay dad isku dhex jiraynu nahay dad anagana ku dhex nool ayagana nagu dhex nool bay ahaayeen laakiin waa kuwee kala saar aadanow kuwa boobka wada iyo kuwa adiga walaaltinimada ka raadinaya maadaama ayaga naftirkoodii biyo fadhiya biyo socdaa qaadaa la yidhi nimankan midiloodka sheegtaan oo ilaa iyo shabeellada dhexe ilaa iyo shabeellada hoose ku faafsan anagu dadku ugu horeeyay dhul la siiyo shabeellada hoose soo dego saa haddaba kuu sheegay waa nimanka hawiye oo ayagaba soo faquuqay soo eriyey oo maxay ahayd gorgaate la yidhaahdo oo hadda leey walaalkeennii raali naga oo boqolaalka su'aasha haddaan kuu ballaariyo nacaybka hawiye daarood u qabo uu sheeganayo dastuurka galmudug baa ku qoran ilaa iyo burtinle inay leeyihiin maxay suugaga iyo teedhisabanada xuduudda galmudug ugu soo xaqiijin waayeen jacaylka raxweyn ay u sheeganayaan oo dhulkeedana markay calanka qabsadaan ay u kala goynayaan daarood u siinayaan oo dhulkeedana ay la sheeganayaan jasiira iyo macnihii ilaa iyo afgooye iyo banaadir 4 rukun oo aysan arki karinba raxweynta maxay tahay hawiye hadda waa taan hadda kuu sheegay hawiyuhu waa labo hawiyaha waa labo labada waa kala saaraynaa hawiyaha degan maxay ahayd gobollada dhexe oo bartamaha soomaalida degan oo waraabadadowga ah hadda hawiye maakaas hawiye waa waraabadadow iyo hawiyaha degan shabeellada dhexe iyo banaadir waa laba hawiye ayaga naftirkooda maanta macquul ma aha hawiyaha shabeellada dhex degan intuu baxo oo uu maartay buurtale ku dagaalamo ma dhici doonto mana dhicaysa mana hore looma arkin laakiin niman hawiye isku sheeg ahaa jirta oo magaca hawiye ku shaqaysta oo gobollada dhexe ku yimid dhulkoodii laga soo xoogay daarood runtu u soo sheegay laad dabada laga soo geliyey meelay ku neefsadaan ay rabaan carruurtooda ku korsadaan mar hore saasay nagu soo galeen war waana la soo ceersaday dhul ma hayno soomaali baynu nahay anaga marka ma ogeyn dhibaatadaas weyn inay soo geysteen daarood dhul baa la siiyey waa la dejiyey hadda way laba rogaal celiyeen kowda hore waxay iska dhigeen dhulkii ayaga la siiyey horta inay ayaga leeyihiin sheekh qaasim laakiin dastuurka galmudug waxa uu ku yaalaa waxaa ku qoran
xuduudda galmudug inay tahay ilaa iyo burtinle waa yahay waqooyiga gaalkacyana daarood baa degan galmudug waa gobol iyo barka maqan daarood baa degan laakiin waxaa dastuurka galmudug ku qoran inay galmudug ka tirsan tahay hawiyaha daaroodka nacaybka intaasi la eg na dhex martay uu raxaweyn u sheegayo raxaweyna uu beerla xusanayo walaalahana ay dhahayo waay hawiyuhu intuu hubkiisii qaato xuduuddeenna galmudug baan soo xaqiijinaynaa ilaa iyo burtinle muxuu u dhihila yahay oo dhul uusan lahayn dad uu walaalo u sheeganayo jecel yahay raxaweyn leedahay 4 rukun iyo lambar 4 siinka dheer iyo sarkuusta ilaa iyo afgooye gobolka shabeellaha hoose maxay hawiye u sheeganayaan may aadaan dastuurkooda dhulka ku qoran may ilaa iyo burtinle soo qabsadaan hadday run sheegayaan walaaltinimadase noocaasi oo dhulka iyagu dastuurkooda ku qorana daaroodka aysan aadi karin oo gaalkacyo baraxley xagga u dhaafi karin haddana macnihii ay ku qabsanayaan dhulka digil iyo mirifle walaalnimadaasay u shaqaynaysaa maxaa u diidan hawiye inuu ilaa iyo nugaal soo qabsado dastuurkiisaa ugu qoranaya ilaan galmudug qodobkaas iga jawaab 10 daqiiqana ku siiyo waana ka baxaya qodobkaas aadanow asoo la soo koobay jawaabtiisoo kooban markii aan bixiyo midda koowaad waxa weeyaan mahmaahyo ayaga samaystay ayaa qusaysa qodobkaas oo ah miskiin baa miska la fuula leh ayagaa la yimid mahmaadan ayaga iska leh macnaa masaakiin ama qof aan waxba ka haysanin waxba galbanin inay fuulaan ay dhameeyaan ay malaayaan waa mahmahdooda miskiin baa miska la fuula leh dhul dadkiisa degan muslimnimo ku xasilan quraanka ilaahay lagu barto nadiif ah ayaa la soo dejiyay inay laayaan anaga iska leh ay dhahaan horta waa miskiin baa miska la fuula leh sababtu ay tahay haddaysan saa wadin buurtinla la aadi lahaa tan labaad waxaan ku xaqiijinayaa nimankan daaroodka dega gobolada dhexe cadowtinimada isku qabaan oo anaga goobjoog ahaa ayaan ku xaqiijinayaa oo ah nin haba mariixaanka dega gobolada dhexe cabdiraxmaan dheere la yiraahdo ilmihiisii shabeellada hoose ku wax dhalay mariixaana la yaqaan dawladda maxamed siyaad bare ku jiray caruurtiisoo dhan ciidan ahaa biixigan inuu ka mid yahay aan u malaynaa haddii ciidamada lugta haysta oo ciidanka ugu sareeya haystay markii dawladda dhacday kadib ayaa waxaa guursaday wiilu sii dhalay aboobu u yahay ayaa waxaa guursaday gabar nin qoor weyne la yiraahdo oo habar gidir ah ayaa wuxuu guursaday gabadhiisii wiil mariixaana gabadhuu guursaday ilaah baa iga sareeya habeenkaas ilaah i waafajiyay aabbaha wuxuu ka yimid hiiraan sheekhaasi 10 daqiiqaan haysanaa noo soo koob ha ninkaa wuxuu sameeyay aadanow wiilkiisii u tagay wuxuu yidhi gabadhaan habargidir fur aabbo ma furaayo waa isjecelnahay waa gobolka shabeellada hoose ugu dhacdadaas wiil qoryooley qaybteeda farxaano fur ma furaayo aabiis wuxuu yidhi wiilka hooyadaada ku yeeraysa sacuudiga soo bax habeenkii gurigu ugu yeeray wuu jarjaray jabaanuu ku shubay dhulkuu ku duugay waana ka tagay waa wiilkiis gabar habargidir fur gabadhii habargidir uur bay qaaday uurka markay qaaday cunug bay dhashay nimankii habargidir ayagana cunugii masaakiinka ah la dhalay gabadhooda dhalay way soo bixiyeen markuu dhashay way jarjareen ayagan bacay ku shubeen way soo tuureen cadowtinimada horta meeshay maraysa in buurtana la caada iska dhaaf in meesha la caada iska dhaaf horta dadkan nabad ilaahay hadda wax walba inna la waxa aayad quraan baa waxay dhahaysaa عسى أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم أنا عايد وحوصو دليل سدا مركل ولا صاحب إثيوبيا وكلام عدو ولا صاحب إلهي وحولي مركل هدي معني دستور كجلمدك وكيالو إلا يبرتن له وهوينا إلا يبرتن له إنه صح حقيقيو وكعب صناعي أما وسنربين وهي دول أيسن لهين maadaama ay sheeganayaan koodii hadday aadi waayeen raxweyn maxaa kula talin lahayd marka iyaguna inay u dhaqmaan sida daaroodka uu la soo dhaqmay hawiyaha oo futada laadka uga soo geliyey oo dhulkii maantay dastuurka galmudug ku qoran hawiye baraxley taakana uusan waqooyiga gaalkacyo xagga u dhaafi karin sidaa in dabada raxweyn ay iskululayso
laadka uga soo geliso luuqadda ay fahmayaan hawiye taas way ma dhigi karnaa marka aadana runtii horeyna waan u sheegay haddana waa ku celinayaa ummadda haddaan la kala cadkaanin horta waxba ma samaysmaayo sunnada ilaahay weeyaan adigaba dhulkaaga hadda waxa loo haysto waa lagaa adag yahay haddaad adiga adkaan lahayd dhulkaa lama qaadan lahayn kala adkaanshaan waa xaq ninka dhulkiisana asaa iskale inuu ka adkaado xaq buu leeyahay sideedana waxaa la yidhahdaa derajadu waa dedeb oo laba daama la qabto masalan dedebku dadka ma yaqaanaan hadda ma jirto dad yaqaan dedebku wuxuu ahaan jiray waa geed weyn mindilaha marka la dhisaayo kor loo taago ama markii webiga lagu gudbaayo raarta la saarayo dedebkaasaa lagu gudbaa marka waa in dhinacaasna qolo qabataa dhinacaana qolo qabataa geedka la qaadaa marka hawiye hadduu rabo derajada in aniga xaggeena ka soo qaadno laakiin xaggiisa dhulka noo dhigo hadda aniga ma jiidi karno ma wadwadi karno dhulka in la dhigo siduu asigaba derajada dhulka u dhigay derajo la'aantu ku dhaqmay ilmaha raxweyn ku kufsanaya afgooye ku jarjaraya hilbahoodii wadnaha iyo beerka gadanaya iibsanayo asagana in saas loo iibiyo mooyaane anigu u malayn maayo inuu dhegma kaa fujisaa la yidhi qaniinsha kaa fujisa hawiye siduu hadda u dhaqmaayo haddaan asiga loola dhaqmin mooryaantiisa iyo diin sheegadayaashiisa shabaabkiisa kulli waa isku mid haddaan loola dhaqmin waxaan u malaynayaa in nolosha digil iyo mirifle sax aysan ahayn nololna aysan ku jirin ayadoo layska qabanin mooryaanta hawiye hadday ayaga qaban lahaayeen horeyna aan u sheegnay xadiidka oo nebiga uu yidhi khud biyadihi unsur akhaaka daaliman ow madluuman ayaga qabanin mooryaantooda ka saarin maba ka saari doonaan waayo dagaalkii amisom waa la reebay sababta loo reebayna waxa waa ulajeedada shabaab in laga saarin shabeellada hoose dagaalkii oday waa daraad uu qaaday oo amray madaxweynaha xakad baa la geliyey sababaha loo geliyey waxay ka mid tahay wuu u jeedaa madaxweynaha kama hadli karo laakiin hawiye inay macnihii sheegtaan gobolka shabeellaha hoose xuduudda macnihii haddana inay dhahaan carbiska wixii ka soo sokeeya annagaa iskale banaadir ay ka tirsan tahay inay dhahaan inkastoo banaadir raxweyn ay kala bar leedahay oo haddana ay sheegan waayaan ilaa iyo burtinle oo dastuurka galmudug ku qoran taasi jacayl raxweyn ay u qabaanna ay sheegtaan ma anfacaysaa walaaltinimada ay sheeganayaan sidaas hadda walaaltinimo oo waxaagan qaadanaya dhehaysa adduunka ma jirto walaaltinimada la sheegay waxa weeyaan walaalkaagu wuxuu asiga raali ku yahay inaad ka qaadatid mooyaane waxaan asiga raali ka ahayn inaad ka qaadatid diin mid muslin iyo mid gaalaba ma dhigto gaaladan anaga hadda la joogno 500 sano ka horay dhulkan soo degeen waxay sameeyeen wax la yiraahdo waxay sameeyeen maalinta soo dhaweynta magacay ugu dareen waxay yiraahdeen Thanksgiving Day bay dhaheen Thanksgiving Day maalintii anaga nala soo dhaweeyay weeyaan dhulkan anaga ma lihin dadkii nagu soo dhaweeyay waxay sameeyaan maalintaas digaagii loo qalay ilaan digaag baa joogay dhulka digaagaas qasriga ama aqalka cad madaxtooyada Mareykanka lagu qalaa madaxweynaha waa inuu iibsadaa digaagaas iyo galey nimankan galey bay beeran jireen oo la yiraahdo maxay ahaayeen Americanka maxay ahaayeen anaga Soomaalida waxaan u naqaanaa Albeesteen laakiin waxaa la yiraahdaa Indian American dadkii dhulka loogu yimid bay ahaayeen dadka soo dhaweeyay waxaa loo sameeyay maalin ilaa iyo madaxweyne ilaa cadaanko dhan aqoonsadaan oo la yiraahdo maalintii nala soo dhaweeyay Thanksgiving Day hatta intaas laga hayo ayagoo muslin ah inay qiraan walaalahooda u qiraan digli mirflo warna soo dhaweyseen walaaleena tahay waxa rabtaan dhaha waxa rabtaan ugu sameeysta dhulkiina idinka iskale darad waa taad shabeelladoos yaa leh aatiri ama jaziira yaa leh wuxuu ku leeyahay dhulka idinka iskale laakiin maamulka anaga iskale waa war cajiiba dad dhulna adiga aadan layn aad maamulkiisa u sheeganaysa anagaba gaalkacyo ma sheegane marka waa wax oo iska cad oo caruurta shabaab way waxan waa laga dhaadhicin shabaabkan ma macneeda dad diin meesha u joogo waa dad dhulka meesha hayo waa hadaba ku sheegaya
dhulka lagu ilaalinayo ayaga lacagta siiya ayaga fangareeya ayaga meesha ku haya madaxda xasan sheekh maxamuud ugu weynaa shabaabka saaxiib u lahaa madaxtooyada ku jireen madaxtooyada lagu qabanay qaraxii madaxtooyada la soo gelinayay ninka soo gali waa ninka madaxtooyada gacanta ku hayo oo wiilka waad aragtay xasan iyo wax la yiraahdo way la shaqaysanayeen ribaayadaha la dhigayeen waxa kamid ah laba shabaab inay wada shaqaystaan shaki ma kaaga jira damul jadiid codawaa markay gacanta ku hayeen maxay dawladda Soomaaliya shabaabku Sheekh Shariifna galad uu ka galay waad ogtahay markii maxaakiimta lagu soo daray ugu dambeyntii 2 daqiiqo haysta shirarka hawiye ay qabsadaan mar walba waxay ku soo dhex daraan ilaa iyo buuraha kaba wixii ka hooseeya annaga iskale mana lahan raxweyn baa iskale walaalaan nahayna way ku dhahayaan codadka markay ka rabaan hadday kursiga fuulaanna sidii xasan sheekh 6 gobol u kala gooyay ayay u kala gooynayaan dhulkaaga daarooday siinayaan su'aashayda ugu dambeyntii waxa weeye shirarka hawiye ay qabsanayaan dastuurkooda galmudug ilaa iyo burtinla ku qorane annaga ilaa iyo burtinle waa inaan xukunnaa waa in nimankaasi macnaheedu ay annaga hoos yimaadaan maxay shirarkooda ugu soo dari waayaan hawiye oo maxaa mar walba shirarkooda macnaheedu shabeellada hoose iyo macnaheedu haweynta banaadir iskale qaybteeda iyo kaliya maxay macnaheedu u soo qaataan waay meesha dhulkooda dastuurkooda ku qoran maxay shirarka ugu soo dari waayaan markay hawiyaha kulmaan أنا عذيرو صدي موقتو أجنتها والغصو دراء قورقور الغصو دويناي وحانو والغصو دراء لكن هوية مدلوت كاليرا المرور واكوشة واللبا هوية دتكان عارنت مركو واحد دعدا شاكدي ننكي لديه جري محوعا ننكي لديه جري ننكي دبك بدنا ويلوال باليري نيفدن مركا لقالو ريرك اللو قالو أسيقو حكومة عيو مركو وحو قادين جري الليري لبعض qaybta saddexaad buu siin jiray dadka qaybsada waa lagu heshiiyay waxa la wiilwaal arintan ma anfaayse waa in la yiraahdaa wiilwaalow labadii cad mid laga reeb waxa la yiraahdaa hal qof ma dhigi kara ereyadan way badan yihiin qoortu ka jiraya saddex qof aan iska dhigno wiilwaalow nin ha yiraahdo labadii cadna mid ha yiraahdo mid laga reebna mid ha yiraahdo oo kay baalir waa la israacay wiilwaal baa loo tagay wiilwaalow baa la yiraahdaa buu soo jeestay labadii cad oo hashi هيب ويري سيفتن وسو سيبتي ورانكن وسو ديارسدي مid laga reeb meeshii la rabay wuxuu yiraahdaa yiri midka saddexaad lagu balmay mid lagu dar buu yiri markuu seefta arkay la soo bixiyay marka hawiye saasa haysata waa la soo shirayaa buurtana laga hadlayaa hawiye dhul baa ka maqan wiil waalow labadii cad meeshii la rabay buurtana anaga iska leh waxay leeyihiin gaalkacyin lagu dar ma dhihi karaan waa beentod gaalkacyin lagu daraa taala marka saaway marka maxaa weeye sida daaroodka ay uga cabsadeen hawiyaha sida daaroodka ay uga cabsadeen oo kale raxaweyn haddii iyaguna ay hubkoodu la soo baxaan oo xisaabta ay soo gediyaan hadhowdii raxaweyn marka shirarkan hawiye intay qabsadaan shabeellada hoose annagaa leh banaadir eelaay male way dhamaanaysaa baa leedahay had walba hawiyahaas karbaashka marka lagu dhufto had walba sidaad isaga celisid buu kuu xishmaynayaa sida daaroodka ay u soo galeen oo kale Soomaan ugu dambeyn waxaaba la yaab leh inay yiraahdaan danay ayaa xamar hadda uu leeyahay anigu waa ku dhashay meeshan hooy hadda wax leega siin hooy raxweena ilaahay hadda gadoomiye ma haystaan fiiriya danay markuu imaanay daraad saaciidna wuxuu leeyahay kursiyadan ama maamulka banaadir maqaamka aniga xamaran ku dhashuu yiri bacaadkana ku ciyaari jiri bal fiiriya marka cad lagu darwa hatta cidaysa mal hatta siyaasiyiinta ma hadlayaan waati siyaasiyiinta qaar macni ma jeerteen gudoomiye degmo ayaa xamar laga siinayaa cashuur kama dhiibo ma degana haweyn oo caradaasi ka badan oo dhulkana qarniyo ka soo talin jirtay hal gudoomiye degmo maanta kama haysato marka macneedu waxa weeye ma arkayse macnaheedu daarood waa necebnahayna waa beentood burtinle annaga leena ma dhigi karaan dhul aysan lahayna way sheeganayeen marka sida daaroodka uu dabada laadka uga soo geliyay xaqoodii dhulkoodii dastuurka ugu qoran macnaheedu inay ka hadli waayaan gaarsiiyay raxaweyna waa in speedkeedu meeshaasi ay soo gaarsiisaa
laga cabsadaa markaasaa laga leexanayaa baad leedahay sooman aad iyo aad weliba ninkii hibil daacad la dhihi jir markuu dhahay buur hakabo ilaa inta anagaa leh inuu sii noolaada lama rabin in la dilaal rabay alayla warraxweyntu way soo kacday ninkii buur hakaba sheegtay waa la dilay in la yiraahdo lafiisi la arko saasay ku ari laayeen hadda muslimnimo maaha ninka dhulkaaga kaa xoogay inaad iska dhicisid diinta qabta islaamka aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalayaal kaasi waxa uu ahaa sheekh qaasim sheekh saalax gudoomiyaha culimaa udiinka Mayland ee geeska Afrika meeshan waa jasiira 2014 ayay ahayd markii deegaanka jasiira ee degmada Afgooye maxjar uu ka dhisay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ag taagan Professor Salim Aliyow Ibrow oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ahna wasiirka maaliyadda oo u dhashay Mayland oo hadda ma arkaysa xildhibaan ah iyo waliba gudoomiye CD 2014 waa kan waa kuwan kulay Facebookna waad ku aragteen waana soo dhigi doonaa waa deegaanka jasiira ee degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose maxjar ay ka dhisayaan marka lahaanshaha dhulkan in lagu murmo macnaheedu wax meesha qabtamaan waxaan u mahadnaqaynaa mar kale oo aan u hambaliyeynaynaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Dr. Cabdiqaadir CD halyeyga geesiga ah macnaheedu 14aadka xaniyaha kuuskuusan isla markaana maanta macnaheedu ka jawaabay xuduudda gobolka Shabeellaha Hoose markay hawiye dhaheen Afgooye ku egtahay isaguna macnaheedu dhagaxaanta ku daadiyay ta macnaheedu aargadana laga dhisayo calanka uu ka qatomiyay CD isaga maamulkiisi waan u mahadnaqaynaa marka raxweyn tusaale ku filan iyo cashar ku filan Sheekh Qaasim baa u dhameeyay oo hawiye galmudug inuu iska leeyahay ilaa ay burtinle dastuurka ugu qoran tahay shirarkooda maalina kuma soo daraan oo gaalkacayo waqooyiga gaalkacayo laba taaka ma gedin karaan iyagoo qoryo wata way ka cabsanayaan garoonka gaalkacayo ku yaala oo degmadaasi uu ka dhaxeeyo garoonka markay aadayaan qoryaha waa laga dhigaa iyagoo shibil ah ayay ka soo degaan ayna ka dhoofaan marka sidaasi awgeed nin gaalkacayo garoonkeeda isagoo AK47 wata tagi waayay degmada uu degan yahay Shabeellada Hoose inuu sheegto 750 kilomitir waxa weeye ishiisi laga arkaa ushiisi lagu tumaa waaye raxweyn iyada lagu jira hay istoosiso dulmigana uu dhamaanaya CD-na waxa weeye dawada uu militariga ayaan saaraynaa militariga muhiimka hoggaan dhammaadiya kasuku ilaahay muruga ii awoodii ummata magan sidaasay kamiiranaaytiya militariga muhiima hoggaan dhammaadiya militariga muhiima hoggaan dhammaadiya kasuku ilaahay muruga ii awoodii ummata magan sidaasay kamiiranaaytiya gaasiyal mamano maragi hamiin emanka dalsho malisnga bishar damba moral jabane imansho sugungalena military imanjay sugungalena gasiyal mamano marangi hami eman kadal sho malisinga bishar damba moral jabane imansho sugungalena military imanjay sugungalena ayana tabindi mutalimindi military ke kamin nagade kamidobe
deersiyo mas-uul daacadee nagado deersiyo mas-uul daacadee nagado dalkay alankay ma baylaayayo amarkii madidayna ma diidayo 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 halkaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii daqiiqadaha badan socday isla markaasna xaqiijinta xuduudda gobolka shabeellaha hoose ee Maryland ee ula wadaaga gobolka Banaadir ee Maryland aan ma arkaysa ku faahfaahinaynay aad baad u mahadsantihiin inta shaqadaasi qabatayna way mahadsan yihiin wadajir baa wax lagu qabtaa ummadda Maryland gacmaha is qabsato tusaalo iyo cashar idinku filan sheekh qaasim sheekh saalax gudoomiyaha culimaa udiinka Maryland aqoonyahanka maadiga iyo diiniga ilaahay isugu daray aftahnimada iyo siyaasadda mutaxallil siyaasi ayaa ma arkaysa idin faahfaahiyey marka xibin aad leedahay hodantinimo loogama tago raxweyn oo dhulkaaga cisho sharafta iyo karaamadana waxay ku jirtaa marka cagaaga ay isku taagtid aadan daba dhilif ahayn markaasaa lagu xishmaynayaa Soomaaliyana sharci kaama celiyo qof aan shantaada kaa celin bay ku maamahataa xaqiiqadana waa sidaas muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina la kala qaato camalkana ilaahay dartii u qaba maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheeryahay xamuulkana iska yaree sababta takaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal naftan la isu dhiibaya la isma siin haddii muuqaalka xiga korna la kala qaatana ballantannada waxaa weeye idama lee jannatul firdowsa